درسينا مانتا وحو كبلابانيا إن شاء الله وليغا لشيغيا واكوما قبضا وليغيدو واكي مميدي أيضو سميستيا مسوى مد إله يا رسول شيغان إن كستون مسألة قيب كميدا شرانا سو أرقناي وليغا oo nikaaxuusan ansaxayn haddaan asaga la helinin waa weli ilaah iyo rasuul sheegeen oo sharcigu sameeyey oo aan gacan ku samays ahayn waana ragga qaraabada gabadha ah ee nasabkeeda ah oo dhanka aabbena weliba ka jira sida weliga ugu horeeya waa gabadha aabbaheed hadduu asagii muslim yaho nool yahay wilaayada asagaa iskale asuu caafimaad qabo caqli leeyuhusan waalnayn marka asaga uu dhinto aabbaha aabbihiis oo gabadha awowgeed aabba dhalay ah ee wilaayada dhaxla waa xaq dhaxalahoo la kala dhaxlo marka awowayaal la waayey dhammaadaan walaalka gabadha ku aabbiyo hooyaa oo aabbeed iyo hooyadeed dhaleen weeye weliga gabadha walaalkaas marka la waayo ama uu hadduusanba jirin ama uu dhinto walaalka gabadha ku aabbaho aabbaheed dhalay weeye weligu kaas marka la waayo ayaa waxa loo gudbayaa walaalkii ku aabbiyo hooyaha wiilka uu dhalay haddii la waayo waxa ku xiga walaalka gabadha ku aabbaa wiilku dhalay marka la waayo waxaa ku xiga gabadha adeerkeed aabbe iyo hooyo laah aabbaheed oo aabbeed ku aabbiyo hooyaa marka la waayo waxaa ku xiga adeerkeed gabadha aabbaheed ku aabbe ah marka kaas la waayo waxaa ku xiga wiilka ina adeerkeed ah oo uu dhalay adeerkeed aabbaheed ku aabbiyo hooyaa kaas marka la waayo waxaa ku xiga wiilka uu dhalay adeerkeed aabbaheed ku aabba kaliya saasay ku soconayda marnana gabadha weli marna ma weydo haddii wax qaraabaa la waayo waxaa gabadha weli u ah imaamka ama suldaanka saddex mid ka mida weeye imaamka ama madaxweynaha muslimiinta amase waaliga ama guddoomiyaha gobole asagu uu magacaabay amase qaadiga uu magacaabay saddexdaas ayaa iyaguna weli noqda marka qaraabo gabadha la waayo weliga marka midka qaraabada waxaa la yidhaha weli khaas ah midka oo madaxda muslimiinta ahna waxaa la yidhaha weli caam ah labadaas weliyaa sharcigu sheegay labadoodan midba waqti gaaruu leeyahy qaraabadaa horrayda marka qaraabo la waayaa weli caaman la aadaa in weligu uu yahay gabadha qaraabadeeda waxaa ku tusaya xadiiskii bukhaariga oon shala soo qaadannay ibnu jariir iyo qayrkood ay wariyeen macqil ibnu yasaar saxaabigii ahaa gabadhii walaashiis aheed oo asagu uu markaas weli u ahaa qaraabana ugu sokeeyey xagga ragga markii uu guuri diiday asagaa arrintii ku soo degtay cid kale lalama hadlina asagaa la yidhi gabadha guuri marka waxay taasu ku tusaydaa weli khaas ah rabbi sheegay rasuul caddeeyey inuu weligu yahay wakadaalika waxaa sidaasoo kale ku tusaya weligu inuu yahay weli gaar ah oo sharcigu sameeyey xadiidkii aan shala soo qaadannay ee caaisha binti abibakar sidiiq rasuulka ka wariday sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku uu yidhi ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni weliyaha fa nikaaxuha baatil rasuulku wuxuu yidhi gabar kasta oo weligeedii gabadhii rasuulku weliga iyadu u tiiriyey ma dhihin weli ee wuxuu yidhi keedii wey weligii gaarka ahaa oo ayada ilaah uga weliga dhigay marka weligu waa mid gaar ah oo sharcigu sameeyey ee ma ahan mid gabadhu iska samaysanayso ama ay wakiilatay imaamuna shaafici kitaabkiisa ah mujalladka saddexaad juuska shanaad safxada 14 dabcada daarulfikri wuxuu sheegay awliyadu siday u kala horeeyaan wuxuuna yidhi sidaan walaa wilaayata liaxadin maca abin faidaa maata filjaddu abulabi فإذا مات فالجد أبو الجد لأن كلهم أب وكذلك الآباء وذلك أن المزوجة من الآباء وليست من الإخوة والولاية غير المواريث ولا ولاية لأحد من الأجداد دونه أب أقرب إلى المزوجة إلى آخر كلامه وغير إمامنا الشافعي رحمه الله قف ولاية الله لما يجروا آب هدو تشوغ هل قف أو ولاية الله لما يجروا مرض المصري يهي عدل يهي caqligiisii joogo asagaa wilaayada leh qof lale wilaayadana ma jiro weli kalo gabadhu leedahay ma jiro markaas wuxuu yidhi haddii aabbe dhinto waxaa ku xiga aabbahaas gabadha dhalay aabbihiis oo gabadha awoowo u ah
asaga iskale cid wilaayada laluhu ma jirto haddii kaasu dhinto awowgii saddexaadaa la raadinaa marka awowayaal ay joogaan cid kale weli ma noqon karto sababtoo ah gabadhu aabbayaalkay ku abtirsataa xataa walaalka la dhashay ma nikaaxi karo walaalka la dhashay oo ku aabbihi hooyaa waxba ma nikaaxi karo sababtoo ah gabadhu aabbahay ku abtirsataa walaalka kuma abtirsato walaalka waa siman yihiin aabbaha unbay ku wada abtirsadaan sidaas darteeda walaal ma nikaaxi karo ayadoo aabbe ama awoowa joogo markaasuu wuxuu yidhi fa idaa lam yakun aabbaa'un falaa wilaayata liaxadin maca alikhwa haddii aabbayaal la waayoon wax aabbayaala joogin walaalaha cid wilaayada lalahu ma jirto gabadha wiilka ay dhashay weli uma noqday qabaan shaaficiyadu xanaabiladu laakiin weli waa u noqon karaahay qabaan laakiin shaaficiyadu waxay qabaan gabadha hadday gabar hore wiilal u dhashay maalan ay tahay gabadhaas wiilkeedu ma nikaaxi kara shaaficiyadu waxay leeyiin maya xanaabiladu waxay leeyiin haa maya waa nikaaxi karaan marka haddii aabbayaal la waayo walaalaha cid wilaayada laluhu ma jirto walaalihii marka wuxuu yidhi waida ijtamaca alikhwatu fa banulabi waalummi owlaa min banilabi haddii walaalihii ay kulmaan oo qayb ka miduhu gabadha ay ku aabbe iyo hooyo yihiin qaybuna ay gabadha aabbe ku yihiin aysan ku hooyo ahayn wilaayada waxaa iskale kuwa ku aabbiyo hooya dhammaan inta qaangaarkaa ee muslimiinta ah ee tukadaanee caadiliinta ah wilaayadu waa ka dhaxayda mid kastaaba isagoonka kale la tashan xataa waa nikaaxi karaa ma kala laha kan ugu weynu gaar uma leh kan ugu yar marba hadday qaangaar yihiin dad muslimiinoo caadilina yihiin wilaayada ayagaa iskale kuwa ku aabbaha ma nikaaxi karaan haddii la waayo kuwa ku aabbe iyo hooyo ah kuwa ku aabbaha wilaayada leh sidaasuu ku waday wakadalika alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska 997 wuxuu yidhi qaala alimaam ibnulbadaal imaam ibnulbadaal waa imaam a'immadii maalikiyada ka mid oo kitaabka saxiixulbukhaariga sharxay xaafid ibnu xajarna ka horreeyey markaasuu yidhi ikhtalafuu fi lweliy weligay culummadu isku khilaafeen fa qaala aljumhuur badanka culummada muslimiinta oo uu ka mid yahay imaamu maalik sufyaanu thawri layth ibnu sacad imaamu shaafici iyo kayrkood waxay yidhaahdeen alawliyaau fi nikaaxi hum ulcasaba awliyada nikaaxa waa ragga gabadha qaraabadeeda ah oo nasabkeeda xagga aabbe ah oo aan xagga hooyo ahayn kuwaasaa la yidhahda awliya markaasuu yidhi walaysa lilkhaali walaa waalidi alummi walaa alikhwati min alummi wa naxwi haaulaa'i wilaaya gabadha abtigeed weli uma noqdo walaalaheeda ku hooyada ah oo aan ku aabba ahayn oo hooyo kaliya kala dhashay oo aan aabbaheed dhalin weli uma noqdaan awoowaha hooyo dhalay weli uma noqdo gabadha sidaasay jamaahiirta culummadu mareen waxaa khilaafay abu xaniifa oo wuxuu yidhi kuwaanuna waa weli aad sheegteen abtiga iyo wiilka ku hooyaa iyo awoowaha hooyo dhalayna ayaguna weliyay noqonayaan intaasuu ku khilaafay a'immada bal ayagana aan fiirinno madhabka xanaabilada alimaam abulqaasim cumar ibn alxusein ibnu cabdillaah alkhiraqi almutawafaa 334 imaamkaas oo dhintay 334 waa kun iyo weliba 100 sano ka hor weeye kitaabka la yidhaha mukhtasar alkhiraqi shiiqa iskale weeye kitaabka weynoo muqni ibnu qudaamaha uu sharxo wuxuu yidhi wa axaqu nnaasi binikaaxi almar'ati alxurati abuuhaa uma abuuhu wayn cala waxa weeyaan gabadha qofka ugu xaqnimo badanee ugu sokeeya inuu nikaaxiyo gabar xor ah waa aabbaheed kadib waxaa ku xiga awowgeed sidaasay u kala sarreeyaan ayaga xanaabiladu marka wiilashay ku soo daraan ay gabadhu dhashay hadday gabadhu horay wiil u dhashay oo wiilkii qaangaar yahay waa ku xiga aabbe iyo awowe marka la waayey asagaa ku xigay qabaan xanaabiladu markaasuu wuxuu yidhi uma ibnuhaa wabnu marka kadib a walaalihii haddana sidii shaaficiyadu sheegeen ayuu u sheegay madhabka xanafiyada balasna fiiri shaykhulislaam wuxuu yidhi waa maxamed ibnu cabdilaahi atumartaashiyu raximahullahu kitaab wuxuu iska leeyaha la yidhaha tanwiiru labsaar wuxuu yidhi alweliyu fi nikaaxi alcasabatu binafsihi weliga nikaaxa oo weliga kaa waa qaraabada gabadha ee nafsadiisa casaba u noqday ee xagga nasabka aabbe qaraaba ugu ah ee gabadha iyo ninkaas qaraabada isku xirta aysan hooyo ahayn ee aabbe ay tahay calaa tartiibi alirthi waalxajbi uu yidhi qaabka dhaxalka ay u kala horeeyaan iyo isxijaabidda tanwiirul absaarka mujalladka 491 uu hadalkaasi ku yaallaa madhabka bal maalikiyadana fiiri
xaafid ibn cabdilbari wuxuu yidhi raximahullah ajmaca alculamaa culummada muslimiintoo dhan waxay ku kulmeen kuna ijmaaceen calaa ana alweliya almadkuura bilishaarati ilayh wuxuu sharxaya xadiiskii nabiga sala allahu calayh wasalam oo uu nebigu yidhi laa nikaaxa ilaa biweliyin nikaax saxiix maahan weli la'aan markaasuu wuxuu yidhi culummada muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen weliga xadiiskaas lagu ishaaray huwa alweliyu min annasabi waalcasaba inuu yahay weliga xagga nasabka iyo casabada ka yimid nasabka gabadha ay ku abtirsato iyo qaraabada ragga ah ee dhanka aabbe ah wakhtalafuu fii khayri alcasaba wixii laakiin aan casabadaas ahayn waa isku khilaafeen oo waa maxay awowgii hooyo dhalay walaalkii ku hooyo ahayn ku aabba ahayn waa kuwii aan ku soo marnay xanafiyada afartii madhabood saas markaan u sheegnay madhabka shanaad ee daahiriyada fiiri alimaam ibnulxasmi kitaabkiisa muxallaha almuxalla bilaahaar juska sagaalaad 451 hadalkii hore istidkaarka oo xaafid ibn cabdilbarina wuxuu ku yaallaa istidkaarka juska 6 22 dabcada mu'asasatu nidaa madhabka daahiriyada alimaam ibnulxasmi kitaabkiisa almuxalla bilaahaar mujalladka sagaalaad 451 wuxuu yidhi